kulanti wanaagsan daawadayaal halkan oo warbaahinta Soomaali weyn production kuna soo dhawaada barnaamijyadeena qodobada aad ku daawan doontaan hadduu rabiidmo waxa ka mid noqonayo xaaladda magaalada Beledweyne oo caawa bandow lagu soo rogay qaraxii saddexaad oo maanta ka dhacay iyo faahfaahin laga helayo tirada dhimashada iyo dhaawacyada mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabelle oo ku geeriyooday qaarna ay ku dhaawacmeen iyo ahaa bartilmaameedka qaraxyadii maanta ka dhacay xirada Lamagalaay ee magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan dhacdooyin murugo leh oo laga soo warinayo gobolkaas iyo waxaan idin la wadaagi doonaa gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete Cismaan oo ku dhawaaqay cidda la damacsanaa shirqoolkaasi lana doonayay in lagu qaarijiyo wararkii ugu dambeeyay guud ahaan xaaladaha guud ee magaalada Beledweyne ayaynu si gaar ah u koofargareyn doonaa waxyaabaha kale oo aad ku daawan doontaan barnaamijyadeena hadduu rabiidmo waxaa ka mid noqonayo wakiilada beesha caalamka oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ku cadaadinayo in uu qalinka ku duugo heshiis u ogolaanayo in ay maraakiibta shisheeye ee ka howlgalaan Soomaaliya xilli dhawaan madaxweynuhu uu saxiixay heshiis ku kacayo 54 milyan haddaba maxay tahay arrinta degdeg ah oo ay wakiilada beesha caalamka ay ka doonayaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaynu xog ka helnay kulan gaar ah oo dhex wakiilka qaramada midoobay oo qaabilsan Soomaaliya iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo arrin halis ah oo ay beesha caalamku ku cadaadinayso madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud barnaamijyadeedkan ayaan idinku soo gudbin doonaa qodobada kale waxaa ka mid noqonaya gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya oo abaabulayo mooshin xooggan oo ka dhanaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa heshiisyo dhawaan uu galay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya oo uu la galay dowladaha Ethiopia, Kenya iyo midowga Yurub oo baarlamaanku mooshin uu ka diyaariyay xilli filla Soomaaliya ay ku dadaalayso inay lacag ku bixiso joojinta mooshinkaasi warar ayaan idinkaga heenaa si lamid ah waxaad daawan doontaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo war ka soo saaray musiibada ka dhacday magaalada Beledweyne qodobadaas ayaynu ku koofargareyn doonaa barnaamijyadeena hase yeeshee intaanu guda gelin daawadayaal waxaan idinka codsanayaa marka hore dhammaantiinba in muuqaalkan like dhadaan sidoo kaleetana la wadaagtaan saaxiibadiina kale aad iyo aad u mahadsantihiin faafahinta ayaanu guda geli doonaa waayahay daawadayaal faafahinta ayaanu guda geli doonaa caawa waxaan wararkeena ku bilaabayaa xaaladda magaalada Beledweyne oo qasan iyo bandow lagu soo rogay magaaladaas kadib qaraxyo saddex ah oo ka dhacay gudaha magaalada Beledweyne gaar ahaan xarunta madaxtooyada gobolka Hiiraan ee xirada Lamagalaay la yiraahdo wararka caawa ka imaanaya magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa lagu waramayaa in gabi ahaanba magaaladu ay qasan tahay kadib markii qaraxyo xooggan maanta ilaa iyo caawa ay ka dhaceen gudaha magaaladaasi qaraxii saddexaad ayaa goordhow waxa uu ka dhacay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan kadib markii barqanimadii maanta laba qarax oo waaweyn ay ka dhaceen gudaha magaalada gaar ahaan xarunta la yiraahdo Lamagalaay oo saldhig u ah magaalada Beledweyne ee caasimadda gobolka Hiiraan halkaasi oo ay ku shiraan inta ugu badan siyaasiyiinta iyo mas'uuliyiinta maamulka Hirshabelle qaraxan ayaa wararku waxay sheegayaan inuu ka dhacay dhabarka dambe ee saldhigga booliiska magaalada Beledweyne iyadoo khasaaraha ka dhashayna faahfaahin dheeraad ay ka soo baxayaan xarunta la beegsaday Lamagalaay waxaa ku sugnaa marka la beegsanayay madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabelle gudoomiyaha baarlamaanka maamulkaas iyo gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete Cismaan oo uu kaga socday shir gaar ah oo ku aadan dagaalada ka soconaya gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya wararka laga helayo magaalada ayaa sheegaya in bartilmaameedka qaraxaasi uu ahaa Cali Jeete Cismaan gudoomiyaha gobolka Hiiraan dhawaalahanba ku sugnaa aagaga dagaalada ee gobolka Hiiraan al-shabaab ayaa isku dayay inay qaarijiyaan gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete Cismaan iyadoo wararka la helayana ay sheegayaan in gudoomiyuhu uu ka badbaaday weerarkaasi hase yeeshee warar kale ayaa sheegayo in qaraxaasi dhaawac uu ka soo gaaray madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed iyo gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka maamulka Hirshabelle iyadoo warar kalena ay sheegayaan in madaxweyne ku-xigeenka iyo gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Hirshabelle ay ka badbaadeen weerarkaasi gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete Cismaan ayaa waxa uu ka hadlay weerarkan qaraxyada ah ee lala bartilmaameedsaday xarunta Lamagalaay isagoo sheegay in bartilmaameedka koowaad isaga uu ahaa waxaana uu sheegay in xilliga weerarka lagu soo qaadaya xirada Lamagalaay uu ku sugnaa gudaha xirada isaga uu tilmaamay inuu ahaa weerarkan mid qorsheysan oo la doonayay in lagu qaarijiyo Cali Jeete Cismaan ayaa lagu xasuustaa todobaadyadii la soo dhaafay inuu waday abaabul xooggan oo ka dhanaa dagaalamayaasha al-shabaab isaga oo jiida hore dagaalka ku sugnaa xirada Lamagalaay ayaana maanta lagu weeraray gaadiidka xamuulka loo yaqaanay ee waaweyn iyadoo wararku ay sheegayaan in barqanimadii maanta afaafka hore ee xarunta madaxtooyada maamulka Hirshabelle ee Lamagalaay ay ka dhaceen labadaasi qaraxyo isla markaasina kooxihii weerarka qaaday ay gudaha u galeen
dhimashada iyo dhaawacyada ayaa sidii tusbax furta noqday waxaana caawa magaalada muqdisho ee caasimadda dalka la keenay qaar ka mid a dadkii maanta ku dhaawacmay qaraxyadaasi. caawa wararka ka imaanaya beledweyne waxay sheegayaan in taliska booliiska ee magaalada beledweyne uu bandow ku soo rogay gebi ahaan magaalada. xaaladda ayaa kacsan, waxaa laga cabsi qabaa in kooxdii weerarka geysatay qaarkood ay ku jiraan gudaha magaalada, iyadoo ciidamaduna ay bandow ay soo rogeen xaafadaha magaalada beledweyne. caawa howlgallo ayaa ka soconayo kuwaasi oo lagu xaqiijinaya amniga magaalada. booliiska gobolka hiiraan ayaana ku dhawaaqay bandowgaasi, iyagoo dadka loo sheegay inaysan ciidano gurigeeda ka soo bixi karin magaalada. caawa dhaawacyo ayaa tuban, qaarkood magaalada muqdisho ayaa loo soo qaaday kadib markii wax looga qaban waayey cisbitaalka weyn ee magaalada beledweyne. maamulka gobolka hiiraan gaar ahaan guddoomiyaha gobolkaasi cali jeeto cusmaan oo warbaahinta soomaali weyn u waramay ayaa waxa uu sheegay in weerarkaas isaga lala damacsanaa, isaga oo calaamad su'aal geliyey cidda doonaysay inay qaarijiso. hase yeeshee waxa uu sheegay in uusan marnaba ka hari doonin dagaalka uu kula jiro kooxda al-shabaab. si kastaba ha noqotee, si guud khasaaraha dhimashada iyo dhaawacyada haddaan eegno, wararka ayaa sheegayo in khasaaraha dhimashada ay kor u dhaafayaan 10 halka dhaawacyaduna ay kor u dhaafayaan ilaa 38 qof, kuwaas oo dhammaantoodba waxyeelo ay ka soo gaartay qaraxyadii waaweynaa ee ka dhacay gudaha magaalada beledweyne. xaaladda magaaladu ma aha mid caga buuran ku taagan. madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya iyo ra'iisul wasaare xamse oo war ka soo saaray ayaa wadajir u cambaareeyey weerarkii musiibada ahaa ee bahalnimada ahaa ee ka dhacay magaalada beledweyne. shacabka ku dhaqan gobolka hiiraan caawa waxay u tahay habeen kale oo mugdi ah, iyada oo ay la kulmayaan weeraro u muuqda argudasho oo ay kala kulmayaan dagaalamayaasha ururka al-shabaab. madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra'iisul wasaaruhuba labaduba si wadajir ah ayay u cambaareeyeen falkani. geesta kaletana madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa kulan la qaatay wakiilka jamciyadda qurumaha ka dhexeysa ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya ambasador James Iswan, isagoo kulankaasi ula qaatana xogo dheeraada laga helayo. xogo hoose oo yeeshay warbaahinta soomaali weyn ayaa ku waramayo in madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud wakiilada beesha caalamku ay ku cadaadinayaan sidii degdeg uu qalinka ugu duugi lahaa in maraakiibta shisheeye ee la dagaalanka burcadbadeedda soomaalida ay gudaha u soo galaan xeebaha soomaalida, isla markaasina ay bilaabaan howlgalladooda. madaxweynaha oo horaan qalinka ku duugay heshiis ku kacayo 54 milyan, isla markaasina u oggolaanayo maraakiibta shisheeye in ay u yimaadaan xeebaha soomaaliya la dagaalanka burcadbadeedda, ayaa waxaa jirtay in madaxweynuhu uu la wadaagay wakiilada beesha caalamka xilligii heshiiska qalinka lagu duugayey inuu marsiin doono baarlamaanka soomaaliya si ay baarlamaanku u meel mariyaan. hase yeeshee warar la helay ayaa sheegayo in wakiilka qaramada midoobey ee soomaaliya ambasador James Iswan uu kulan degdega uu ka dalbaday madaxweyne xasan sheekh maxamuud, kulankaasi oo looga hariisanayo arrinta ku aadan heshiiskii madaxweynuhu dhowaan uu saxiixay kaasi oo ka dhacay xerada xalane ee muqdisho. ambasador James Iswan ayaa xogta la helay waxay sheegaysaa inuu madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud uu ku cadaadinayo in uu heshiiska qalinka ku duugo sidii loo howlgelin lahaa maraakiibta shisheeye, isla markaasina toos ay howlgal kaga bilaabi lahaayeen soomaaliya. wakiilada beesha caalamka iyo midowda Yurub ayaa la rumaysan yahay in madaxweynuhu ay ku khiyaanayaan howlgalkooda soomaaliya, maadaama haatan ay jirin burcadbadeed soomaali ah oo la warin karo, iyada oo dadka ka falanqooda arrimaha dhaqaalaha iyo amniguba ay ku waramayaan in qorshaha midowda Yurub iyo beesha caalamkuba uu yahay mid markaasi lagu xaalufinayo kheyraadka soomaaliya, isla markaasina ay doonayaan maraakiibta shisheeye ee ku soo gelayo la dagaalanka burcadbadeedda soomaalida ay ku gidaaman yihiin qorshayaal kale oo ay midowda Yurub iyo beesha caalamku ay doonayaan. madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa la soo hordhigay sida xogtu ay warinayso bajet kale oo baarlamaanku ku marsiiyo qorshahan dib loogu cusboonaysiinayo howlgalka la dagaalanka burcadbadeedda soomaalida ee xeebaha soomaaliya, iyadoo ambasador James Iswan madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ka dalbaday in si degdeg ah uu qalinka ugu duugay heshiiskani. kulanka dhex maray ambasador James Iswan iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa la wariyey in uu xayiran yahay in madaxweynuhu uu qalinka ku duugo qandaraaskan in wakiilada beesha caalamku ay bixiyaan dhaqaalihii lagu marsiin lahaa baarlamaanka soomaaliya. tan iyo markii madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu majraa u qabtay dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa waxa ay ku dhaqaaqday heshiisyo waaweyn kuwaas oo dhammaantoodba lagu xaalufinayo kheyraadka soomaaliya, waxaana qayb ka heshiiskii dowladda imaaraadka looga xaraashay shidaalka soomaaliya iyo si la mid ah heshiisyo kale waaweyn oo ah mid dowladda shiinaha ay la gashay soomaaliya. dowladda shiinaha soomaaliya ay kala shaqayn doonto ka hortagga xaalufinta xeebaha soomaaliya. geesta kaleetana magaalada muqdisho ee caasimadda dalka waxaa ka soconayo abaabulka mooshin xooggan, isla markaasina ay wadaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya, gaar ahaan kuwa mucaarasan damul jadiid.
mooshinkan ayaa looga soo horjeedaa heshiisya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya uu la galay dowladaha Imaaraadka, Itoobiya, Kenya iyo Masar, kuwaas oo dhammaantoodba aan la marsiinin baarlamaanka Soomaaliya. heshiisyadan ayaa loo arkaa kuwa qaarkood halis ku ah qarannimada Soomaaliya. warar la helay ayaa sheegayo in xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ay abaabulayaan mooshin xooggan oo ay kaga soo horjeedaan qorshihii dowladda federaalka ee Soomaaliya kheyraadka shidaalka Soomaaliya ay kaga xaraashtay dowladda Imaaraadka Carabta. mooshinkan ayaa la sheegay in xildhibaanadan ay u gudbiyeen xogayaha baarlamaanka Soomaaliya Cabdikariim Xaaji Cabdi Buux, iyada oo taasina khilaaf uu ka dhashay oo ay isku maandhaafeen gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe, iyadoo gudoomiyaha baarlamaankuna uu ku warceliyay uu ka diiday xogayaha inuu ka qabto mooshinkaasi oo looga soo horjeedo. taasi ayaana dhalisay ismaandhaaf dhex maray gudoomiyaha baarlamaanka iyo xogayaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo ugu dambeyn iscasilay. gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur iyo labadiisa ku xigeen ayaa tan iyo intii loo doortay gudoomiyaha baarlamaanku waxay si weyn ugu soo dhawaanayeen Villa Soomaaliya, iyadoo la fahamsan yahay diiditaanka in Villa Soomaaliya ay lacag ay ku bixisay sidii loo joojin lahaa mooshinkan uu qabtay xogayaha baarlamaanka Soomaaliya oo ay soo gudbiyeen xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya. guux xoogan ayaana caawa ka jiro magaalada Muqdisho. mooshinkan ayaana suuragal tahay in gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka loo gudbiyo. gudaana daawadayaal intaas ayaan ku soo meeraya barnaamijyada kala socoteen warbaahinta Soomaali Weyn Production tan iyo kulanti dambe nabadii warsan.